daawadayna sharafta badan oo haddii ay tahay markii ugu horreysay ee channelkaa soo booqata fadlan subscribe noo dheh gambeelkana furo si kuu soo gaaraan casharo taya leh muuqaalkana laag noo saar haddii aad se hore noola joogto muuqaalka noo laagaray commentigana noogu reeb talaya tusaale waxaad haysid xisaab fasalka sideedaad casharkii labaad dabcan cutubka koobaadaan ku jirnaa xisaabta hore waxaan soo qaadanay cashirkii koobaad cutubka koobaad wuxuu ahay urur waxaan casharkan ku baran doonaa habka loo qoro ururada habka loo qoro ururada ayaan ku baran doonaa casharkan cashirkii hore wuxuu ahay urur guud iyo urur duleed habka ururada loo qorana casharkaana ku baranaynaa ururada waxaa lagu muujin karaa habab badan kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qaabab kala duwanaa loo muujin karaa kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ba habka tixidda ta habka astaan qeexidda labadaasaa ugu muhiimsan ayaan halkan door ku saaraynaa ba soo qaado marka habka tixidda muxuu yahay habka tixidda ku tirsanayaasha ururka waxaa lagu qeexaa qaab tixid ah waa la isdaba dhigayaa iyadoo dhammaan ku tirsanayaasha ururka la wada qoraayo ururka inta uu ka kooban yahay waa la wada qorayaa loona kala dhexaysiinayo sumadana loo kala dhexaysiinaya amba hakad sumadan oo loo yaqaano hakad ayaa loo kala dhexaysiinayaa tusaale waxaad rabtaa inaad qortid buug hakad qalin hakad sabuurad saasaa u qoraysaa inta aad rabtid inaad qortid dhammaantood waa wada qore hakad hakadaan u dhexaysiinaysaa habkaas waxaa loo yaqaanaa habka tixidda loo yaqaanaa tusaale u qor ku tirsanayaasha ururka salaadaha waajibka ah habka tixidda ururka salaadaha waajibka ah ayaa waxaan u qoraynaa habka tixidda aan u qoraynaa habka tixidda ayaan u qoraynaa salaadaha waajibka waa naqaana waa 5 salaadood soo ma sidaas urur waaye maadaama la yaqaano urur waa la dhihi karaa furfur marka furfur dheh waxaan leenahay ba amba ururka ba wuxuu la mid yahay subax oo salaad subax loola jeedo duhur salaad duhur hakad casr salaad casr hakad maqrib salaad maqrib hakad cish waa kaasaa marka waa ururka ba wuxuu u taagan yahay ururka salaadaha waajibka ah waana subax duhur casr maqrib cisho habkaasaa loo qorayaa habka tixidda marka ururkan habka tixidda u qor haddii lagu yidhaaho wixii la qoraayay dhammaantood waa wada qoraysaa magacyadooda adoon halka tegayn toosaa u qoraysaa hakad hakadaa u dhexaysiina bis meeshaana waxaa waaye sakallaad ugu xidhaysaa sakal ama baraakadaa laba dhinac ugu xidhaysaa markaas waxaa u qortay habka tixidda ayaa u qortay waa fahamtay soo ma habka astaan qeexidda kee marka habka astaan qeexidda maxay tahay habka astaan qeexidda waa mid ka mid ah hababka loo isticmaalo qoridda ururada iyada oo la raacinayo sumadan oo aheeday laba dhibcood labadan dhibcoodaa raacinaysaa ama waxaad raacinaysaa calaamadan slashta aad raacinaysaa amba nuqdatinkan raacine amba slashka maxay u taagan yihin marka slashkan amba nuqdatinkan maxay u taagan yihiin oo loo akriyo maxaa loo akriyaa marka waxaa loo akriyaa taas oo ay la macno yihiin nuqdatain hadii la yidhaha nuqdatinkaas waxaa waaye taas oo ay la macno taha slashkana muxuu la macno yahay taas oo waa isku mid taa rabtaa qaadan kartaa kadib waxaan qorayaa astaan uu leeyahay ku tirsanayaasha oo lagu soo xiray sakallo astaanta ay leeyihiin aan qoraa kadibna baraakadkaan soo xirayaa baraakadka ayaan soo xirayaa mar kale aan ku celiyo habka astaan qeexidda waa mid ka mid ah hababka loo isticmaalo qorista ururada iyada oo la raacinayo sumadda nuqdateynkaas amba slashkan oo loo akriyo taas oo ay la macno yihiin kadib waxaan qorayaa astaan uu leeyahay ku tirsanaha oo lagu soo xiray sakallo kadib aan ku soo xirayaa bracket amba sakallo
tusaale koowaad waxaa la yidhi ka soo qaad ururka ba waa urur ku tirsana urur tirooyinka tirsiimo maxaa la yidhi ururka ba waa ururka tirooyinka tirsiimo ee ka weyn 12 tirooyinka tirsiimo haddaad maqasho waxaa waaye 1 2 3 4 5 6 7 waa loola jeedaa tirooyinka tirsiimo kuwaas ayaa la yidhaha ee ka weyn 12 habka astaan qeexidda ee ururka ba waa sida soo socota marka habka astaan qeexidda ee ururka ba waa sida soo socota furfur ba waxaan leenahay marka ba waxay la mid tahay dhihi mayno ba waa ururka ka tirsanayaasha xa ya ba waa ururka ka tirsanayaasha xa nuqdatayn ka imaada mahano ya taasoo xa ay ka weyn tahay 12 ya hadalkan intaana qornaya ba waa ururka tirooyinka tirsiimo haye ee ka weyn 12 intaana u taagan ba waa ururka ka tirsanayaasha xa taasoo xa ay ka weyn tahay 12 xa maxay ka weyn tahay 12 12 yaa ka weyn marka 13 14 waxaasoo dhan waa ururka tirooyinka tirsiimo waa marka waa kaasaa nuqdateen isticmaalnada islaashidoo la isticmaalana fiiri ba waa ururka tirsanaasha xa taasoo xa ay ku weyn tahay 12 isku mid waaye meeshaan amba 2 dhibcood geli amba islaashtan geli isku mid waaye waxaa waaye habka astaan qeexidda la yidhaha habka astaan qeexidda see loo akhriyaa marka qaabka loo akhriya hadda waa inta kugu qorantaa tan waxaa loo akhriyaa ba waa ururka ku tirsanayaasha xa ba waxay la mid tahay dhiimiisya ba waa ururka ku tirsanayaasha xa taasoo waa labadaas dhibcood amba calaamadda islaashka ayaa taasoo u taagan marka ba waa ururka ka tirsanayaasha xa maasaa joogtaa taasoo waa laban dhibcood xa kaa jaanqaadaya marka xa ay tahay ururka tirooyinka tirsiimo ee ka weyn 12 yaa hadalka inta ka bilow ilaa inta ku geey inta ba ka bilow ilaa 12 ku geey hadalkaasoo kooban qaabkana loo qori karaa marka waa kaasaa u akhriska yarane tusaalaha labaad muxuuna leeyahay haddii ururka a uu la mid yahay 6 8 10 12 14 u qor habka astaan qeexidda hadda habka tixidda ayuu u qoran yahay habka wuxuu u qoran yahay tixidda 6 aa la qoray 8 10 12 14 waa la wada qoray caadi astaan qeexiddan qoraynaa marka furfur dheh waa kana marka waxaan leenahay waa ku tirsanayaasha xa waa ururka ku tirsanayaasha xa taasoo xa ay tahay tiro dhaban ah oo ka weyn 4 kana yar 16 xa maxay ka weyn tahay xa nambaradan u taagan tahay nambaradan 4na waa ka weyn yihiin 16na way ka yar yihiin sax marka xa waxay u taagan tahay ururka ku tirsanayaasha oo dhabankaa soo ma dhabanka yaa ugu yar 4 ugu yar 6 ugu yar 4na way ka weyn tahay 14 ugu weyn 16 way ka yar tahay marka 4 iyo 16 inta u dhaxaysay ku jiraan nambaradan soo ma waxaan leenahay marka waa ku tirsanayaasha xa taasoo xa ay tahay tiro dhaban ah oo ka weyn 4 kana yar 16 amba sidaana loo qori karaa hadda waxaan u qornay qaabka nuqdateynka waxaa leedahay waa ku tirsanayaasha xa taasoo xa ay tahay tiro dhaban ah xana waxay ka weyn tahay 4 waxayna ka yar tahay 16 waxay ka weyn tahay 4 waxayna ka yar tahay 16 labadan qaab in isla qorayso su-aasha markaa ka jawaabaysid labadan qaab in isla qorayso ma aha hal midaa qaadan kartaa amba kan amba ka midka midaa qoray laakiin labada hore ku tuso waaya anigu sax ma aha in labada hore looga jawaabo hal mid bisa looga jawaabaya waa fahamta umaleyna qaabkaana u akrinaya marka qoraalkan inta ku yeel inaa ku wareerta laga yaabaa qaabkaana u akrinaya tan waxaa loo akrinayaa waa ururka ku tirsanayaasha xa hadaad tiraahd waa ururka ku tirsanayaasha xadaasaa joogtaa laba dhibcood aa ku tumaano taas oo
ay u dhigantahay 2 dhibcood taas oo xa waa kaase xa markuu ogto xa ay tahay ururka tiro dhaban ah oo ka weyn 4 kana yar 16 sidaasaa u aqrinaysaa hagaag tusaalaha saddexaad wuxuuna leeyahay e waa ururka ku tirsanayaasha xa taasoo xa ay tahay tiro dhaban ah oo ka weyn 2 kana yar 20 u qor habka tixidda e waa ururka ku tirsanayaasha xa taasoo xa ay tahay tiro dhaban ah oo ka weyn 2 kana yar 20 u qor habka tixidda hadda waxay u qoran tahay astaan qeexidda tixidaan qoraynaa muga dhaban oo 2 ka weyn 20 ka yar dhaban 2 ka weyn 4 uu ka bilaabanaa 20 uu ka yarna 18 uu ku dhamaanaa furfurdhe marka waxaan leenahay waa ururka 4 ka bilaabanaya dhabankooga waa 6 dhabankooga 8 ilaa 18 laga gaaro ilaa 18 laga gaaro habka tixidda aan qornada tusaale afraad waxaan leenahay haddii ururka ba uu ka kooban yahay 9 16 25 81 waa nambarada waa nambarada laba jibaaran waaye u qor habka astaan qeexidda ururkan nambarada laba jibaaran uu ka samaysan yahay 9 uu ka bilaabanaa oo 3 3 ku dhifo ka timid 81 uu ku dhamaanaa oo 9 9 ku dhifo ka timid marka 9 laba jibaar ka yar waxaa waaye 4 iyo 1 4 2 ku dhifay ka timid 9 laba jibaarka ka weynna waxaa waaye 10 ku dhifo boqol keenaysa marka xid laba jibaaradan waxay u dhexeeyaan 4 iyo 100 ay u dhexeeyaan inta u dhexeysa waaye waayahay furfurdhe marka ba waa ururka ku tirsanayaasha xa taasoo xa ay tahay tiro laba jibaaran oo ka weyn 4 kana yar 100 xadan waa tiro kastoo laba jibaaran oo 4 ka weyn 4 yaa ka weyn 9 noqon kartaa 6 noqon kartaa 25 36 49 9 64 8 laga gaaro intaas noqon kartaa 100na way ka yartaa habka astaan qeexidana loo qoray marka habka astaan qeexidda ayaa loo qoray waayahay waxqabad waxaa laga rabaa muga inaad su-aashan la jawaabtid waxaa la yidhi haddii ururka xa uu ka kooban yahay 5 7 9 11 13 15 nambaradan u jeedaa soo maha 5 la yidhi 6 laga boodo 7 lagu dhacay 8 laga boodo 9 lagu dhacay 10 laga boodo 11 lagu dhacay 12 laga boodo 13 lagu dhacay 14 laga boodo 15 lagu dhacay nambaradan waxay wadaagaan jira magacay wadaagaan jira marka magacay wadaagaan ayaa jira tan waxaa lagu muujiyay habka tixidda loo qoro marka hadda aniga waxa aan u qorayaa habka astaan qeexidda aniga magan leeyahay marka adiga waaye isku day inaad ka jawaabtid oo habka astaan qeexidda aa u qortid ee ka soo jawaabtid su-aashaas waayahay casharkeena halkaas ayuu nagu egyahay wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh